shaqaalaha dawladda ee Somaliland ayaa maanta wargelin ka soo saartay shuruudaha laga rabo shaqaalaha dawladda ee ku sugan xarumaha dawladda si loo wargeliyo iyadoo ay gabagabo ku dhowdahay qorsheynta bilowga hawqabadka baaxadda ballaaran ee tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda ayaa maanta gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Somaliland Sharmaarka Geele kaga hadlay shuruudaha ugu horeeyay ee ugu muhiimsan ee laga rabo muwaadin shaqaalaha kaasi oo shaaciyay inay tahay haybsashada aqoonsiga amba kaarka Somaliland National ID Card. arintani ayuu gudoomiyuhu hay'adda shaqaalaha dawladdu ku sheegay inay muhiim u tahay xaqiijinta iyo shaqaalahan yahay qof ku jira liiska mushahrid bixinta ee wasaaradaha. gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa shirkaasi jaraa'id ku sheegay inuu qof aanu imika haysan ama aanu hore u qaadan uu degdeg u gudbiyo codsiga uu ku rabo in loo sameeyo aqoonsiga Somaliland wasaaradiisa gaar ahaan waaxda maamulka iyo maareynta xuduudaha shaqaalaha taasi oo hanaanka ku haboon helo qaadashada aqoonsiga ee Somaliland. gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa shaqaalaha dawladdu waxay ka shaqeynaysaa wargelinta u dambeysay ee ku socota shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waa lagu bilaabay doontiinta tayeynta iyo dhiirigelinta kala duwan ee rikoobka soo bixi doona adeegga shaqaale si ay u bilowdo rikoobkii ay ku xidhiidhsan tayeynta shaqaalaha dawladda. shuruudda koowaad ee qofka shaqaalaha laga eegayo waxa weeye inuu leeyahay kaarkii muwaadinimada Jamhuuriyadda Somaliland. kaarkaasi waa kaliya ee sugi doona inaad tahay qofkii magacan iska lahaa. haddaba si aad kaarka u hesho shaqadan oo ka bilaabi doonta wejigeeda koobaadi xarumaha wasaaradaha ee ku sugan Hargeysa waxaa laga doonayaa haddii aad leedahayna inaad degdeg ugu gudbiso xafiiska xudunta shaqaalaha ama muhiima xisooskaaga. haddii aanad lahayn waxaa laga doonayaa inaad imika isku diiwaangeliso. taasi oo keliya waxay caddeyn kartaa qofka magacan iskale inaad tahay. haddii ogow adigoo wargelinteedu soo gaadhay weliba bilaash lagugu daabacayo kaarkaagii muwaadinimada haddii aad qaadan weydo annaga waxay noo qoran tahay qofan magacaan iska lahayn oo magac qof kala doonayay ku adeegstaan ku shaqayso. annaguna uma tixgelin doono inaad tahay qofkii shaqaalaha qaranka iska lahaa. waxaan u qormi doonaa ama loo aqoonsan doonaa aagaan xilliyaadii ahayd marba gobolka aan galayno baanu wiisiska ku horeysiin doonaa. iminkana wiisiskani wuxuu ku wajahayay shaqaalaha xarumaha Hargeysa ku sugan. Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.